waxaan maraynay qarnigii 18aad. waxaan iloobay dhacdo yar oo dhacday qarnigii 17aad dabayaaqadii dhammaadkiisii. muxuu ahay 1798 waxaa dagaal dhex maray oo marka hore xilfay ahaayeen, saaxiibay ahaayeen dowladdii oo boqortooyadii la dhihi jiray gobroon ee geladii, iyo waxaa dagaal dhex maray dowladdii ajuuraan oo markaas ay kala gogo-eysay. marka dowladdaas ajuuraan dagaalkaas waa loogu guuleystay oo dowladdii muxuu ahay oo geladii ayaa guuleysatay oo nin la dhihi jiray axmed adeer oo hogaaminayay dowladdaas. markay guuleysatay dowladda ajuuraan 1798 ayaa maamulkeedu ku ekaa. kadib qadka ayay ka baxday. marka dowladdii oo gobroonna ayadana waxay sii jirtay ilaa ay qarnigii 19aad bilowgiisii 1909kii wiil la dhihi jiray maxamuud axmed adeer oo axmed adeer dhalay, wiilkaasa ugu dambeeyey saldanadaas ay jirto. ayagana qadka ayay ka baxeen markii ay la dagaaleen talyaanigii. waxaa kalaa jiray labada incident aan soo sheegay oo qarnigii 18aad oo ka dhacay masaajidka cadaawe oo boondheere ku yaalay, ceelkii 16 qofood lagu dilay oo lagu aasay, iyo masaajidka xanaafta oo aan iray bangiga dhexe kasoo horjeedkiisii savoyo, hotel savoy meeshii ahaan jirtay, hoteelkii labada dabaq oo alwaaxa ahaa. hoteelkaas dhulkiisa waxaa ku yaalay masaajidkaas ceel baa ku yaalay, ceelkaasna waa laisku dagaalay. dad oo xoolo dhaqata xamardaya iyo dadkii oo xamar deganaa ayaa iyagana meesha iskugu dhaceen. marka waxaa dhacday isku dhaca inuu badan rabay. dadkii reer banaadir ayaa xajka qaar ka aaday xajka. marka waxay kula kulmeen muxuu ahay qoyskii albusayti ninkii la dhihi jiray oo ka telinayay meeshan masqad cumaan iyo geeska african uu maamulayay ama uu haystay. marka waxaa dhacday dadka reer banaadir ay u ishtakoodeen oo yiraaheen dhibaatadaanana haysata, oo runtii oo marka hore saldanad ayaan haysanay, saldanadaas awood bay lahayd, laakiin saldanadii way baaba'day. hadda low an order ma haysano, waxaan u baahannahay inaad nagu kaalmayso. marka wuxuu ballan qaaday albusayti inuu magaalada u imaan doono oo soo booqan doono. 1830kii ayaa la sheegaa inuu muqdisho yimid oo runtii wadahadal la galay iyo heshiis oo dhinaca siyaasad iyo dhinac dhaqaale iyo dhinaca nabadgelyo uu la galay dadkii reer banaadir oo meesha joogay. waxaa la sheegaa in miiska malaayga meesha hadda uu yahay banaan weyn oo cad u ahaa, ilaa iyo jaamacadda xamarweyne qofkii joogay ilaa iyo badda carabacaad u ahaa. suuqa ugu weyn oo markaa muqdishona meeshu ayuu ahaa. meeshaas ayuu khudbad ka jeediyey. magacan oo reer xamarna waxaa la sheegaa, taarikhyaanada ay sheegaan in waqtigaas uu baxay markuu yiri khudbadiisa uu ku daray waxaad tihiin dad xamraa ah, ma idinku imaanin inaa idin adoonsado oo idin gato, bal waxaa idinku imid inaan heshiis dhaqaale aan kala galno iyo mid siyaasadeed iyo mid amni, taasoo ahayd dekedaha banaadir oo ahaa warshiikh ilaa iyo muxuu ahaa kismaayo ayaa aniga la wareegayaa dhaqdhaqaaqiisii. waxaa idinku bedelayaa low iyo an order, dowladnimo iyo maamul iyo nidaam ayaa idinku bedelayaa. saas bay ahayd. marka nidaamkaas ayaa dhaqan galay. muxuu ahay 1837 mar kale ayuu yimid. wuxuuna uu sii gudbay magaalada zanzibar oo waqtiga uu yimid waxay ahayd 1837 bishii january yuu yimid. zanzibar uu u gudbay. muqdisho markuu yimid kadib zanzibar uu aaday. zanzibar bisha may wiil ayaa ugu dhashay, barqash bin saciidaa dhashay. wiilkiisii oo soomaalida ay reer busayda dhan u yaqaaniin, wiilkaas ayaa dhashay. wiilkaas wuxuu imaan doonaa marka aabihiisa dhinto. aabihiisii saciid bin saciid al busaydi wuxuu dhiman doonaa allah u naxariisto 1856. asna wuxuu yimid 1857 ayaa muqdisho maxaa la dhahaa maamulkiisa ama xukunkiisii uu kusoo wareegay. maamulkaas ayay meesha ka hayeen ilaa iyo 1892 markii oo walaalkiisii cali bin saciid al busaydi oo talyaaniga
gorgortan la galay in dekedaha uu ka kireeyo. sanadka markuu ahaa 1896 compromise buu la galay dowladda talyaaniga. sanadka markuu ahaa bishii january 1905 13 january 1905 magaalada london ayay ku kulmeen, heshiis ayay kala saxiixdeen oo dhaqaale ah. heshiiskaas oo ku baxayay 144,000 oo lacagtan boundka starliinka ah inay ku bedeshaan 25 sano oo kiro ah dekedaha banaadir talyaaniga in lagu wareejiyo. talyaanigu wuxuu bixinayaa 144,000 oo lacagta maxaa la dhahaa boundka starliinka oo UK. waxaa la siinayaa kiro oo dekedaha banaadir 25 sannadood inuu ku naafaco. heshiiskaas waxaa lagu sii daray in uu dadka reer banaadir uu siinayo full protection ah, maadaama dekedaha markii uu la wareegayay dekedaha markuu la wareegaya in heshiis oo iskaashi jiray oo mid siyaasad iyo mid nabadgelyo oo jiray iyo mid dhaqaale ah. marka sidaas ayuu talyaanigu ku aqbalay oo ku laqay. marka dadka reer banaadir wax dhibaataa maysan qabin, horumarkii ay raadinayeen, nabadgelyadii ay raadinayeen ayay heleen. talyaanigii wadankii markuu u yimid waqtigii uu la wareegay 1916 march talyaaniga markuu gacanta ku dhigay, isla markii wuxuu sameeyey horumar weyn. wadooyinkii oo baaba'sanaa ayuu wado cusub ka dhigay, magaalooyinkii oo qadiimiga ayuu dib u dhisay, saldhigyo badan uu samaystay, bangiyo ayuu sameeyey, bangi de Roma, bangi de Milano ayuu sameeyey oo ku yaalay sirtan oo maxaa la dhahaa bangiga dhexe dhinaciisa ayay ku yaaleen. shine maxamar waqtiga oo la dhisay waxay ahayd muxuu ahaay 1938 ayaa la dhisay. marka xiliyadaas oo dhan waxaan rabaa inaan idin sheego 1915 magaalada muqdisho boqolkiiba 40 talyaani ayaa ahaa. markii dadka muqdisho deganaa oo dhan reer xamar keliyay ahaayeen. 90,000 oo reer xamar ayaana ku noolaa waqtigaas. marka waxaa yimid 50,000 oo talyaani oo macal qoysaskooda isku jira. markii loo qeybiyo 40% ayay naqanayeen dadka talyaaniga oo marka waqtigaas muqdisho joogay. marka 20,000 muqdisho ayay joogeen, 30,000 waxaa loo qeybiyey magaalooyinka banaadir ayaa loo qeybiyey. talyaaniga waxyaaba u qabta waxaa ka mid ah xilligaas furdo ayuu dhisay shingaani oo runtii maraakiib kusoo xirta oo runtii ganacsiga sida uu buumin uu noqdo, oo asagana maxaa la dhahaa faa'iido badan ay ugu soo gasho. dhinaca oo kalena oo koonfur wuxuu ka sameeyey muxuu ahaay afasiyoni deged diyaaradeed ayuu sameeyey. wuxuu kaluu sameeyey wada tariin ayuu sameeyey oo 114 kilomitr u socota muqdisho ilaa iyo jawhar. warshada sonkorta mareeri, warshada sonkorta oo runtii meesha ka jiri jiray sida la socotaan. muxuu ahaay waa qiso aad u dheer. dadkii plantationka ahaa oo bantuga meesha lagu talaalay iyo maxaa la dhahaa waa qiso aad iyo aad u dheer. nasiib buunda iyo qisadiisii iyo runtii hadda waqti uma hayno, laakiin waxaan rabnaa inaan soo gabagabeyno. talyaaniga 1919 nabadgelyada ayuu aad u hayay. magaalada muqdisho waxay lahayd 5 albaabood oo laga soo galo. 5taas albaabood dad reer xamar keliya, reer banaadir keliya ayaa deganaa, dad kale oo outsider ah looma ogoleen. marka 5taas albaab waxaa kasoo geli jiray keliya 2 maalmood, maalinta talaadada iyo maalinta khamiista ah from 6 to 5, 6 ilaa 5. dad ganacsata ah oo xamarday la dhihi jiray. dhinaca waqooyi waxaa ka imaan jireen muxuu ahaay reer mataan cabdulle oo deganaayeen markaa wardhiigle iyo yaakshiid oo keeni jiray sayladoodii, iyo dhinaca oo muxuu ahaay koonfur oo ka imaan jiray hallaf oo mursado ah oo saldhigoodana marka ahaa muxuu ahaay digfeer. marka waxay keeni jireen hilibka, caanaha, badarka iyo labeenta, haragga, cawska, waxyaabahaasay keeni jireen. waa taariikh lama iloobaan, qof walba ka warhaaya, aabbayaalkeena way ka warhaayaan. waxaa loogu bedeli jiray sokorta, saliidda, bunka, cusbada, cirbadaha sakiinta,
dharka marada jacfaanka marada aliindiga oo waxyaabahaas ay iyagana garwax ay ka dhigin jireen raggooda iyo dumarkooda ay geshin jireen ayaa jiri jiray markas markuu sanadka markuu 1920 wixii ka bilowday talyaaniga wuxuu qaatay xisbigii oo fashistiga ahaa benito mussolini wuxuu amar ku bixiyey maadaama dad rebel ah oo jireen sayid maxamed cabdulla xasan iyo sheekh xasan barsane allah u wada naxariisto dadkaas runtii wuxuu siyaasad ahaan isku bedelay wuxuu yidhi dadkaas wax naga caabiya ayaan u baahannahay marka dadkii soomaalida ahaa ayaa markaa ciidan loo qoray oo si ay uga caabiyaan dhinacaas dagaalka marka soomaalida 5 albaabood oo ka xirneyd ayaa dib loo furay marka 5 albaabood intaysan xirneen runtii magaalada waxay ahayd magaalo oo meel walba aad tagto maqsuul aad ka helaysid waxay ahayd magaalada meel walba aad tagto biyo qabow aad cabtid ka helaysid dhulka habeenkii 6 saac kadib waa la dhaqi jiray wadada nadiif ay ahayd amniga aad iyo aad buu u sugnaa magaalada muqdisho dadka ayagoo albaabadooda u furan ayay seexan jireen ayagoo wax walwal ama wax xabsi ah aysan qabin laakiin 1925 waxay ka bilowday amnigii faraha ayuu ka baxay oo dadka reer banaadir ahaa albaabadoodii furan ay seexan jireen waxay isku arkeen in dhacid iyo boob oo ay la kulmaan talyaaniga 1931 wuxuu arkay nabadgelyo daro inay magaalada ay ku faaftay wuxuu amar ku siiyey dadkii magaalada muqdisho deganaayeen shineema xamar meesha la yiraah waxaa la dhihi jiray shineema talyaaniga la dhihi jiray shineema italiano kafeena sulaale ayaa albaabkiisa shineemada laga gala ayuu ku yaalay wuxuu amar ku bixiyey shineema xamar waxay ka bilaabatay ilaa karaaj dalsuud in after 5 pm galabtii 5 galabna waxay ka bilowda qof madow ah inaan loo ogolayn oo meeshaas lagu arki karin oo la tooganayo heer waxaa la joogay marka talyaaniga uu aad u cabsado marka heerkaas ayaanu maraynay marka waan soo gabagabeynayaa 1941 talyaaniga ingiriiskii ayaa dagaal isku qaaday talyaaniga ayaa loogu guuleystay talyaaniga wuu cararay ingiriiska ayaa marka taariikhdii SYL-na waad ogtihiin meelo badan ayaan ku qoray iyo maxuu ahaay wixii bacdigii 1960gii iyo waxa aan dheefnay iyo 1991kii intaba waa qoray insha allahu tacaala intaas aan u ahaato ulijeedadeeda ma aha inaan cid aan ku aflagaadeeyo ama cid aan ku ammaano oo qaas ah laakiin waa taariikh qoran inta aan sheegay waa inta oo runtii aan soo guuriyey waana inta oo runtii aan u baahnaa ama dadka ay u baahan yihiin inay ogaadaan marka walaalayaal waxa weeyaan qof walbo wuxuu leeyahay dhaqan iyo caado dhaqanka caadada iyo aanu lahayn dadka reer banaadir waxaanu ahayn dadka noocaas oo xadaarada iyo guryaha maanta aad arkaysaan iskama soo bixin ilaa amarkiis ma ku imaanin dad baa dhisay oo juhdi geliyey oo runtii intaasoo 1,000 sano ku noolaa intaasoo 100 sano ay ku noolaayeen meeshaas marka waxaa loo baahnaan lahaa markaan oo kale dadkaas in ay runtii thank you la yiraah oo awaal looga hayo oo la yiraah indigenous people ayaa tihiin dadkii dhulka helay ayaa tihiin dadkii dhulka dhisay ayaa tihiin dadkii wadaniyiinta ayaa tihiin intaas ayaa la rabay laakiin bilcagsi ay noqotay oo runtii waaba la heebsoocay ilaahay subxaana wa tacaala soomaali qalbigooda hamideeyo muxuu ahaa ilaahay ha isku keeno midnimada wax ka weyn waala waayey runtii heer waxaanu joognaa haddeertaan aan tiih aan ka bixi la-aanahay tiihana ilaah naga bixiyo ilaahay qalbigeeni iyo midnimadeeni ha wanaajiyo wabilaahi towfiiq waa walaalkiini sharif axmed aaroone يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم